deegaanka Soomaalida oo ka mid ah deegaanada dalka Itoobiya ayaa ka duwan deegaanada kale ee dalka waana deegaanka kaliya ay ku nool yihiin si nabadgelyo ugana shaqeystaan dhammaan qowmiyadaha kala duwan ee ka jira dalkan Itoobiya iyadoo ayna jirin wax kala soociyo kala duwanaanshaha haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa inay ku wada noolaadaan deegaanka Soomaalida dhammaan qowmiyadaha dalka si ka duwan deegaanada kale ee dalka oo aysan jirin inay ku wada nool yihiin qowmiyadaha kala duwan ee dalka waa kuwa shacabka ku nool magaalada Jigjiga oo arintaas aragtidooda ka dhiibanaya kulay waa arrin nasiib darro oo waa xumaashaha deegaanka Soomaalida deegaanka ku nool malay sababtoo ah deegaanada kale dalka qowmiyad badan baa ka jira deegaan lagu wada nool yahay sida deegaankeena ma jiro taana waxaa sababaysa in deegaankeena uu jiro dadka Soomaalida deegaankeena ku nool ayna ilaalinayna lahaanshaha deegaankeena sababtoo ah deegaanada kale dalka waxaan ogsoonahay imika deegaanka ugu dhow jaarka lanahay oo kale Oromiyo kale taan ka soo qaadno iska daa dukaanaad ka qabsato ama ganacsi aad ka samaysatay intii aad wadada maraysaa laga yaabaa inaad adoo nabadgelyo aad tageydo marka taa ay kullee waxay la dhigantaa oo leeyahay waa damir xumo haysata dhammaan Soomaalida oo meel kasta ay Soomaalida ku nooshahay deegaankeena ma laakiin meel kasta ay Soomaalida ku nooshahay bulshooyin badan oo kala duwan oo ama kuwa qowmiyadaha kale Itoobiya noqdaan ama meel kale noqdaan baa kuwa nool marka taasuna kullee waxay ka dhigantaa oo Soomaalida ay dicifnimadeeda marka arrinkaana bulshada kale waxay soo jeedin lahaa imika dalkeenan waa deegaanka kaliya ee nabadda ah maanta nabad haysta marka kullee waxaan dhihi lahaa intii imika isbedel ku dhacay ama 3 sano ee ugu dambeysay isbedel ku dhacayna waa lagu soo badanaya anigu waxaan aaminsanahay ka shakhsiyan dhowr sano kadib inay noqon doonto caasimadda saddexaad ee dalka haddii aan mataqaanaa arrimahan jira aan dib looga qaban in badan inay difference ka jiro deegaamada Itoobiya deegaanka Soomaalida inta badan waa lagu soo hayaamay ama waa lagu soo qaxay marka qaybta su'aalaha isweydiinaya waxay jirtaa meelaha magaalada resource ka soo galto su'aalaha haddaan tago oo kale airportka magaalada Jigjiga oo maxaan ku dhahay galad wilwaal kama arkaysa wax ka shaqeynaya Soomaaliya dadka ka shaqeynaya waa dad Ajnabi ah waa dad Itoobiyaan kale ah haddaan tagno magaalada guryaha laga dhiska magaalada ka socda dad ka shaqeynaya inta badan waa dad aan Soomaali ahayn haddaan artay magaalada boqolkii xaafadood oo meel yaala boqol dukaan baa ku yaal boqolka dukaan ku yaalana wiilal Ajnabi ah ka shaqeynaya marka qaybta isma dhihi karo dhalinyarada ayaa saas oo dhan liid u ah dhalinyarada ilbixinasho oo ay ku jiraan laakiin waxaan isleeyahay dhalinyarada force ama xogaa culays xagga dawladda saaran baa jirta oo dawladda haddaan magaalada wax kasto income yar naga soo galayo qoladan aad joogta marka sabab aan isleeyahay madaxweynaha waxaan weydiin lahaa oo kale ama dhihi lahaa fariin ugu dir lahaa mudane madaxweyne deegaan kasta wuxuu ku noolyahay dadkiisa dadkuna wuxuu ku noolyahay deegaanka dhaqaalaha ka soo baxa hadiiba dhaqaale dhalinyarada laga maartay ma laptop inaan qaato xafiiska tago shaqo ma ii noqonayso impossible ma noqonayso laakiin dakhligu meelo badan buu naga soo galayaa anagu ma lihin dekad waxaan leenahay airport waxaan leenahay beero waxaan leenahay dhisme waxyaalahaas baanu maaragtay aanu shaqada naga soo gashaa ama dhaqaale naga soo gala marka meelihii hadiiba gebi ahaanba dhalinyaradii laga qabsaday waa xagga dhalinyaradu miyay hayaanta ama gobolada kale hayaanta annagana kama ogolo gobolka Oromiya haddaan tagno kama shaqeyn karno meelaha kale oo kilalada kama shaqeyn karno laakiin annaga naloo soo guura ma dhihi karaaba marka bal dhalinyaraduna waxaan dhihi lahaa war bal arrintan u dabagalo imtixaamaadka waa la wada galaa ma meesha imtixaamaad gaar ah lagu galaa oo dadka mashaqada si gaar ah loo karto gaar ah lagu doortaa bal arrimahaas in loo dabagalo oo waxa dhaqaalaha wadanka wixii loo qaatay oo ciidani ay maartay inuu daba fadhiisanayno deegaanka hadaynu marti ku nahayna deegaanka Soomaalida kala ku biirno hadii kala dad muuqda Soomaali oo muuqda aan noqono farqiga u dhaxeeya maartay in qowmiyadaha kale shucuubta Itoobiya ay deegaankeena si nabdan ku joogaan oo ka shaqeystaan anagana noo galeen in maartay aan tagno dalalka dariska anaga waxa keenaya waxa weeyaan qof Soomaali maarka deegaanka xamaarada ka shaqeysan kara ama bajaaj ku dhaxaysan kara ama shaqo kale yar ma jiro iska daa qof kale waxaan malaydaan waxaan lahayn shacabka Soomaalida maartay waa dad la guumaysto way gabadha Itoobiyaanka inta ka soo qaada sabab bay barti doonto geyn kartaa gabadha Soomaaliyeedna tirdhow wax ma geyn karto ama harar ama wajaalo ka torbaan waxaana ka torbaan ka dhigay waxooda ka dhigay ka torbaan ka dhigay way wax barasho waarta dhalinyarada jaamacadaha ka dhigto dulliga ku dhigtaan kuwa Jigjiga joogana xorriyad ba ku dhigtaan waxaad waa maartay dadka in maartay maskax laga xoreeyo ayaa ka horeysa in maartay wax loo qabto dawladda Itoobiya inay gumaysato shacabka Soomaaliyeed dunida dhan baa og in shacabka Soomaaliyeed halgameena dunida dhan baa og marka dadka maanta dad waxaan arkay TPLF amaan hayo oo kale TPLF xasuuq qiimaysatay waa loo geeyay deegaankeena jilowaaday wax ka dhacay shalay Jigjiga wax ka dhacay
muqdisho in dadka laga soo dhiibay hargeysa laga soo qafaalinay jabuuti laga soo dhiibay marka waxaan leeyahay dhalinyarada deegaankeenna ka shaqaysanaysa xabashida waxay ku arkeen dee jilacsanaanteennii iyo waxay u tahay qurbay u tahay ayagu America u tahay Canada annaga rawaartahay dhalinyaradeenni meelaha darbiyada jiifta Xirsi Maxamed Mahad Xirsi Dheere Nabad TV Jigjiga